Asalaamu calaykum asxaabay. Halkan waxaa idinkugu haynaa muuqaalo aad u xiiso badan oo isugu jira ilo qosol, la yaab iyo kuwo wata macluumaad kooban oo faa'iido leh. Haddaba aan gudagalno muuqaalkeena. Waxa uu sameeyey isbiimeeyaha tijaabo cajiib ah, asigoona kaga soo baxay xagga sare ee buurta madfac. Shaqaalahan beerta xayawaanada waxa uu leeyahay xeeladiisa gaarka ah ee uu kula xiriiro yaxaasyada. Weli kama suulin dalka Jarmalka inay ka shaqeeyaan tareenada uumibaxa. Waxaa laga maarmaan ah in shaqaalahan uu ku raaxaysanayo shaqadan burburinta baabuurta. Waxa u suura gashay xaaxida inay halkan kaga gudubto si fudud. Hirarka awoodda badan ayaa dib ugu soo celiyay dadkan halkii ay taagnaayeen. Nasiib wanaag, cidna kuma sugneen agagaarka derbiga markii uu soo dumayay. Aygün çabuk gel, duvar göçüyor Aygün. Of, bina gitti. In laga qaado muuqaal cajiib ah diyaaradda oo degaysa waxay u baahan tahay in la helo baabuur xawaare sare leh. Qofkan waxa uu xirfad sare u leeyahay isku hagaajinta saxanada. In lagu dhiilo ciyaaraha muuqaalada geemka si waaqici ah waxay noqotay mid xaqiiq ah waqtigan aynu joogno. In la tago gunta hoose ee biyaha badda uma baahna xirfad sare oo dabaal ah, maxaa yeelay maanta waxaynu haysanaa waxyaalo si fudud inoogu suuragelinaya arrinkaas. Waxaad arkaysaan ma ahan shil ka dhacay tartan gawaari, balse waa bandhig lagu qabta Alaska oo baabuuro badan laga soo tuuro qaybta sare ee buurtan. Dabeelaha iyo duufaanada awoodda badan waa kuwa qaadi kara wax walba. Bomen. Oh, ik zie bomen knakken. Oh, een heel blok. In het midden van het huis er maar. Faraska waa jilaa weyn oo xaalad kasta matali kara. Steven! I thought you were dead!
gabadhan waxa ay heshay qaab lagu quudiyo kalluunka balse walaasheeda ka yar waa mid aad ugu walwalsan arrinkan. Do that. Don't try to eat my sheep. kalluunka ku jira biyaha uma dulqaadan cadaadiskaas oo dhan. Haaxayda waa xayawaanka kaliya ee adduunka ee hurdi kara 3 sano oo xiriir ah. Shimbirka ma dayicin cunadan oo fursadda ku helay. Lemuurka kuma qanacsana inuu ka soo hormuuqdo kaamirada. ninkan waxa uu helay hab wanaagsan oo uu guriga ugu celiyo wariyaha u kuurgalaya arrimaha gurigiisa. hadda ayuu gadaal ka ogaaday wariyaha in shaashada wararka cimilada ay taabasho ku shaqeyso. I gotta try it. Hold on. Can you believe that? Just touch it. You can go anywhere you want. That's so cool. I didn't know it. Can I zoom? Oh man, it's a great day. It's a great day. It's a beautiful start this morning. Our temperatures are warming up nicely this afternoon, but we're still gonna. Seriously? I've never touched it before. Oh my gosh, you can tilt it. What's going on here? All right, anyway, I'm gonna figure this all out. A beautiful day in the next couple of days. muuqaal qaadaha waa mid ku baashaalaya wajiga wariyaha asigoona marba wax u xiraya. And really the first time that school is really getting canceled kind of across the region. We know Governor Cooper had put out a message earlier. Зацени, с каким невозмутимым лицом Гэндальф рассказывает нам о снегопаде. A good reminder with this being really the first significant snow that we've had to be safe if you do have to go somewhere on the roads and make sure you're giving. wariyaha waxa uu qabaa foobiyada ka cabsashada cayaanada duula. That's because it's hot outside. Stuff like that happens. Was that live? Are we live? Oh, brother. Brad Wills either got attacked by Scaredy a cat. large bug or a small drone. I'm not sure which. He needs to shake it off though. shimbirka waxa uu isku qalday cawska iyo madaxa timaha ninkan. Kıdırhan Şırnak'ta canlı yayın yaparken ilginç bir olay yaşandı. Şırnak Ticaret Odası'nın çatısındaki canlı yayın sırasında Kıdırhan'ın başına kuş kondu. Tecrübeli muhabir hiçbir şey olmamış gibi yayına devam ederken kuş birkaç saniye sonra tekrar havalandı. muuqaal duubaha waxa u wanaagsaneyd inuu u fiirsado halka uu cagta saarayo. halka kaamirmaankan uu u qalma asigana inuu helo bilada dahabka ee tartankan. waxaa laga maarmaan ah in mootadan wax uun ay wadaan. nasiib wanaagsan ayay u ahayd orodyahanka inuu ku kufo halka ugu dambeysa ee diilinta xariga tartanka uu ku dhammaado. Second year running, sliding his way. I'm not sure whether that was intended or not, but he does cross the line. And Jimmy Gressier, for the second year running, is the men's. soo saaraha barnaamijka
waxay ka qabatay maanta inuu ku ciyaaro wariyada wararka cimilada. Hey! What are you doing? Hi! Over here! Shaqaalaha waa mid ku dadaalay inuusan ku ciyaarin bandhigii TV-ga. Wiisha waa mid dareemaysa hadda micnaha xorriyadda. darawalka gaariga xamuulka ma helin wado kale oo aanan ka ahayn in sidaas uu ugu jeedo gaariga kale laamiga. maanta waxaan ogaanay macnaha dhabta ee ka dambaysa sameynta tilmaamayaasha wadooyinka ee lagu sawiray kalluunka. Crazy. Look at them all coming up right here. Stop. nasiib wanaag raggan waxay arkeen farasta kareetada ku xiran intii ay ku soo socotay. gawaarida yar waa kuwa aan la yareysan karin awoodooda. Look at this. Wow. Damn. We don't catch Jackson. kani waa waxa dhacayo marka gaariga laga hilmaamo barig gacmeedka. in shini ay soo weerarto waa mid uu ku dareemaya nafis wadaha baabuurkan asigoona iska wata socdaalkiisa. hubaal qofkani waxa uu u leeyahay mootada xirfad sare. halka baabuurtan ay u muuqdaan sidii kooxo shimbiro ah oo soo diyaarinaya inay duulaan. hadda wixii ka dambeeya mootolaha waa inuu u fiirsadaa dhagaxaanta yar ee laamiga iska yaala. in kubad sidaas gacmaha iyo faraha loogu wareejiyo waa arrin u baahan xirfadeeda gaarka ah. ciyaartoyda kubadda kolayga ee weerarkan soo qaaday dadaal walbo ay sameeyeen kuma guuleysan inay shabaqa dul dhigaan kubadda. ku xiridda dhexda qaraha intaas oo laastiig cadaadiskeeda ma ahan mid wax xamili karo. muuqaalada hawada sare ee la isaga soo tuuro diyaaradaha gaarka
waa kuwa wata xamaasadooda runtii. Kicidda shiraaca baarashuudka waa mid asigana lagu tiriya safar duulimaad oo wata xamaasadiisa. dadka qaar marka ay doonayaan inay ka gudbaan wadooyinkan oo kale ee aadka u waaweyn waxa ay la kulmaan badanaa jahwareer, sidaas daraaddeed waa inaan caawinaa. maalin uun waan jeclaan lahaa inaan tijaabiyo ciyaarahan runtii. waa inaad haysataa lacag, sidoo kalena aad tahay qof sabir badan markaad iibsanayso jalatooyinka lagu gado laamiyada dalka Turkiga. Nothing fit. I got these. ugu dambeyntiina muuqaalkan waa isbeddelka ka dhaca halkan inta lagu guda jiro dhamaadka xilli jilaalka. halkan ayuu noogu eegyahay muuqaalkeena. fadlan haddaad ka hesho muuqaalka like saar kana soo dhiib aragtidaada, hana hilmaama inaad kanaalka caalam subscribe saarto si aad ula socotid muuqaalada noocan oo kale ah soo socda. alle hadduu idmo la kulan dambe oo xiiso leh.